Kadib halaagii qoomkii Nebi Nuux intii ka soo hadhay ee rumaysay rasuulka waxa ay ku faaftay dunida, waxaana ka mid ahaa qoom la odhan jiray Caad. Reer Caad waxa ay ahaayeen dad aad u xoog waaweyn, dadka oo dhanna waa ay ka baqi jireen. Sida Qur-aanka lagu tilmaamay, Ilaahay waxa uu yidhi qowmi Caad waxay ahaayeen qoom aad u xoog waaweyn oo dhulka dushiisa aan wax la mida lagu abuurin, laakiin awooddaasi waxba umay tarin. Waxaana lagu halaagay noole kan ugu awoodda daran, si ay u xaqiiqsadaan in awooddoodu ay daciif tahay xagga Ilaahay. Haddaba yay ahaayeen reer Caad? Kuma ayaa u ahaa nebigii loo soo diray? Si xagga ayaa ay ku dambeeyeen noloshoodu? Intaaba waxaad kaga bogan doontaa muuqaalkeena maanta. Mahadsanid. Reer Caad waxa ay ahaayeen qoom aad u xoog waaweyn, kuna caan ahaa dhisidda guryo aad u waaweyn. Waqtiga ugu badan waxa ay ku bixin jireen dhisidda guryaha, ciyaarista ciyaaraha dhaqanka, iyo cunista cuntada. Buuraha dushooda waxa ay ka dhisi jireen meelo lagu ciyaaro ciyaaraha dhaqanka oo dadku si fudud u wada arki karaan. Xilliyada abaaraha waxay ku duuli jireen deegaamada u dhow, si fududna cagta ayay ku marin jireen. Reer Caad waxaa lagu tilmaamaa inay aad u xanaaq badnaayeen, meesha ay ku duulaanna si fudud cagta u marin jireen. Alle Subxaanahu wa Tacaala wuu barakeeyey dhulkii ay degi jireen reer Caad. Dhulkoodu waxa uu ahaa dhul cagaaran, waxaana ku yaalay beero aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. Reer Caad waxay ahaayeen qoom Carab ah, waxayna degganaayeen dhul u dhow bad la yidhaahdo Shaxti, dhinacana ku haya webi la yidhaahdo Makhiis, waana deegaanka Axqaaf ee u dhexeeya Cumaan iyo gobolka Xadramawt ee Yaman. Waxa ay noqdeen dad nimcooyinka Ilaahay siiyey ku kufriya, waxayna samaysteen sanamyo ay caabudaan. Waxaa caado u ahayd isla weynida iyo baabi'inta dadka deegaankooda ah ee tamarta yar. Alle ayaa u soo diray nin iyaga ka mid ahaa, waana Nebi Huud calayhi salaam. Wuxuu u soo xambaaray kelmaddii ahayd inuu uga digo shirkiga. Nebi Huud asal ahaan wuxuu ka soo jeeday durriyaddii Nebi Nuux. Abtirsigiisu waxa uu noqonayaa Huud ibnu Saalix ibnu Arfakshad ibnu Saam binu Nuux calayhi salaam. Culimada qaar ayaa ka dhiga abtirsiga Nebi Huud Caamir ibnu Saalix ibnu Arfakshad ibnu Saam binu Nuux calayhi salaam. Nebi Huud waxa uu ka mid ahaa afartii nebi ee uu asalkoodu Carab ka soo jeeday, waxa ayna kala ahaayeen Huud calayhi salaam, Saalax calayhi salaam, Shucayb calayhi salaam, iyo Nebiyullaahi Maxamed calayhi salaatu wassalaam. Reer Caad waxay lahaayeen sanamyo la yidhaahdo Sed, Samuud iyo Hir. Nebigu si kastoo wax ugu sheegay qoomkiisa waa ay ka diidayeen. Nebi Huud markii uu ka quustay qoomkiisa, waxa uu baryay Ilaahay, waxa uuna weydiistay inuu u gargaaro isaga iyo intii rumaysay. Waxa uuna Ilaahay ku yidhi, dhowaan ayaa ay ka murugoon doonaan waxa ay sameeyeen. Muddo kadib waxaa haleeshay cadhadii Alle. Muddo 3 sano ayaa uu dhulkooda abaaraysnaa, waxaa gudhay webiyadii, baahidiina way badatay. Abaartii kadib waxaa dhulkoodii hadheeyay daruuro madow oo u eg kuwa roobka sida. Waxay u malaynayeen in uu roob u da'ayo, balse waxay ahaayeen kuwo halaagu sida. Waxaa yimid roob wata dabaylo iyo dhaxan, mid walbana gurigiisa ayaa uu ku orday. Allah ayaa u soo diray dabaylo xoog wata, si uu u tusiyo in awooddoodu Ilaahay agtiisa waxba ka ahayn. Sidaasi ayayna ku halaagsameen. Waxaan filayaa inaad qisadan wuxuun ka faa'iideen. Mahadsanid.